ugu yaraan laba qof ayaa waxay ku dhinteen qarax goor dhaweed ka dhacay magaalada Buuhoodle haddaba si aan faahfaahin dheeraad ah uga helno ayaa waxaan la xiriiray wariye Cali Dhagjar oo kamid ah wariyaasha magaalada Buuhoodle wariye Cali Dhagjar waxaad ku sugan tahay magaalada Buuhoodle bal maxaa dhacay noo faahfaahin qaraxa حسن وادما سنتهاي أبارو بعد الصلاة المغرب هي قرح كدعي بوغولة قرحات وهو كدعي كمان مجال بوغولة كرهان كوب يكشف في مجال بوغولة الآن هذا قرحة وحكون شيء وشير كوريا كما بدأ خاصمه أحمد محمود دولال هي أدرك محمد علي أو ها يقرأ مرة وضعي لكلي وريا كما سياسة يفكر سؤالي وريا سماعي عمر عبد الرشيد علي سماكي لكن مثلا هذا سياسي لما يأخذ وجهك والله صوت سماعي عين داوع باكرة ساس أي حسن ودعك رعاوة. مركا علي هذا دتك وفافايسو قرح النوعي أيها مقاربة قرحي مقفبة قرحي قرح نوع موها. حسن دك هذا اللي بنيا وحكي صباح المساس في اللقوه هذا كدنا قف كذا أن ورا هذا يسوي لنا قف كني وحاول سلامي على معرفة من حميتاج كدنا وإيش مركا قرح نوع عصوها بس اسم يامي قفتي اسم يامينا بقول في من شيء الله. marka qofka ismiidaamiyay siyaasiyiintana isku qarxiyay isugu ma qofka deegaanka oo la garanaya ilaa bilaanooda xilaadeena weeye magaalada Nafaqada ka dhacaysa waa dadkay buu madaxa ku sanad goob xad ah waana meel aan maamul fiican ka jirin oo tageysan marka idkoo baabaayna saamay khasaaraha rasmi ka jirto salada dhaawac baa la dhigay marka bixin baa lagu karayaa laakiin waxaan ku sheegnay qarax dhacay فلسطين لموجة إذا سمع حسن وكل شيء أنا وحكت سمعي لفيش كسنان ميسا مشكايا